munaasabadan oo ahayd casharaf lagu maamuusayay gudoomiyaha guddida garsoorka iyo cadaaladda baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Xaaji Daahir waxaana munaasabadan soo agaasimay Sheekh Cabdiqani Barre Xoosh oo kamid ah culimada waaweyn ee dalkan Jarmalka waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin odayaal dhalinyaro mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxa kamid ahaa Xaaji Maxamed Axmed Indhaguure عبد واحد محمد عبد الشكور محمد كوس أبادر نور دعر عبد الله الحي يشق عبد الفلاح سعيد يجونا مسؤولين تي هالكاسي كهذا الشيء هذا اللذو بدنا سودوين أيا وحكمي ده هذا اللذو دي عش شرفتن أو تشيد كده ودارنا سودوين تا حلبان علي ظاهر oo maartay markii labaad nagu soo booqday dalkani Jarmalka gaar ahaan magaalada Mainz xildhibaanka waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow xildhibaanka Cali Xaaji Daahir waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow waa markii labaad oo aad na soo booqato waan ku faraxsanahay inaad noo timi oo na soo booqatay annaguna gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa xildhibaanka kaliya oo mar walba noo yimaada oo hadaan reer Jarmalin nahay xabashadeedan aanu dawladda ugu dhiibno oo noo yimaada way warbixinna siiya dalkii halku marayo xaaladdu siday tahay marka soo dhawow baan leenahay aad baan ugu faraxsanahay xildhibaan federaalka ah inaanu aragno oo la kulanno oo la cashayno oo la sheekaysano oo wareysano xildhibaankana waxaan leenahay waa kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan aad noo qiimaysay noo soo booqatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku xifdiyo waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan Cali Xaaji Daahir maxaa mudane ku soo dhawow shacabkaagii iyo dalkaba marar badan buu xildhibaanku noo yimi markaasna wuxuu nooga waramaa wadankii xaaladiisa iyo maaragtay buu markaas nooga waramaa marka hal fariin baan xaggan xildhibaanka iyo meesha shaashadaha TV-ga laga daawan doono aan madaxweynaha Soomaaliya u marinaya dawladda Soomaaliya waxa weeye madaxweynuhu markuu xaggan wadanka Jarmalka yimi wuxuu saxay in dadkii la soo celiyo marka dadkaas oo duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan wadan ku joogay ama duruufo kala duwan soo maray marka waxa dhacday kiisas badan oo dad dhalinyarada ahay markii la yiri waa la celinaya inay qaar kood dabaqay iska turoro dhinteen qaar kood inay waasheen iyagoo de xaaladda ay ka yimaadeen ogaa iyo juhdiga xaggan u soo galeen shuruuciyadii wixii lagu adkeeyay marka waxaan leenahay madaxweynaha arrintaana ka fiirso waxa weeye marka insha Allah ta'ala xildhibaankana waxa la inta fariinta naga gaarsiyo insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa marka waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow horena waad noogu timid iminkana waa markii labaad aad noo imanayso weeye akhyaarta reer Mainz dhamaantood waa lagu soo dhaweynayaa iyo reer Wiesbadenba waxa sharaf noo ah inaad na soo booqatay annaguna waan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad xildhibaan Cali Xaaji Daahir oo dalkii ka yimid oo markii labaad uu noo yimid haddaan reer Mainz nahay xildhibaankaanu soo dhaweynaynaa xafladan aanu u qaban qaabiyay Sheekh Cabdiqani Xoosh ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay xildhibaan soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow reer Mainz iyo reer Wiesbaden ayaa halkan kugu soo dhaweynaya wixii ware ee aad noo sidee dalkii nooga sidee iyo xaaladda siyaasaddu halkay marayso iyo xaaladda halkay marayaan waad nooga warrami doontaa haddii alla idmo rabbil caalamiin halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Cali oo run ahaantii markii labaad nagu soo booqday magaaladan aan deganahay waxaa farxad weyn ah xildhibaan Cali wuxuu sumad u yahay run ahaantii waa rajageliyaha dalka dadka jooga Soomaaliyeed aad ku fara badan 10 sano u dambeeyay soo galay iyo wuxuu yahay rajo imaanshihiisa warbixin inuu nasiyo annagana uu dhirigeliyo sidoo kale waxaan aad u soo dhaweynaynaa xildhibaanka Cali Xaaji Daahir oo markii labaad noo yimid nuguna soo booqanaya Germany gaar ahaan Mainz haddana aan ku sugnahay Wiesbaden xildhibaan waxaan leenahay soo dhawow soo dhaweynaynaa xildhibaan Cali Xaaji Daahir oo markii labaad halkan Jarmalka nagu soo booqday waxaan leenahay soo dhawow waxa weeye gacmo furan ku soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaynaa annagoo kamid ah guddigii iyo dhalinyaradii wadankan Jarmalka ku noolaa gaar ahaan magaalada Mainz iyo areadeeda oo Rheinland-Pfalz gobolkan la isku yiraahdo waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu halkan maanta martida noogu yahay oo nagu soo booqday waxa kale oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marti sharafta Soomaaliyeed sida weyn kulankan uga soo qayb gashay khayartan sharafta leh qiimaha badan halkan ugu soo dhaweysay maxaa wadankan Jarmalka iyo magaalada Mainz dabcan waa markii labaad oo idin imaado waqtigiisii oo kale
shirkii aanu kal hore u nimi heeg ama maxkamadan adduunka kii un baanu haddana sanadkan u nimi waqtigiisii waynu insha allahu tacaala bacda cashada markaynu cashayno kadib baynu wixii dalka iyo dee siyaasadda iyo ku saabsan aynu wax iska odhan doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa soo dhoweyntii uun dee baan idinka mahad celinayaa qiimaha badan iyo waqtigan soo bixiseen iyadoo dee xilli aad u qabow lagu jiro oo dadka Afrika jooga aanay dareemi karayninba malaha qabow sida uu xaalku yahay iyo meelaha fog ay ka timaadeen iyo dee shaqooyinkiina ka soo baxdeen iyo waqtiga qiimaha badan ee soo bixiseen yaa runtii aad iyo aad aan idinka mahad celinayaa ayaa la mudakar MMTV Jarmalka.